madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa kula la qaatay gudida abaaraha heer qaran iyo kuwa gobolka Togdheer kulankan oo lagu gurfaynayay sidii loo taakulayn lahaa ama loogu gurman lahaa dadka xoolo dhaqatada ah ee abaaruhu saameeyeen ku dhaqan gobolada bariga Soomaaliland maadaama dadkaasi xoolo dhaqatada ay yihiin lafdhabarta Soomaaliland waxaana kulankan oo ka qabsoomay madaxtooyada gobolka Togdheer ka hadlay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer iyo xubno kamid ah gudida abaaraha wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland waxaana kamid ah adaladoodii saraar waa saddex qaybood saraar Togdheer iyo saraar Sanaag iyo saraar Caynaba saddexda meelood bay dadkii ka soo qaxay waxay joogaan culays ku yihiin oo ay joogaan gobolka Togdheer waxaan isku daynay inaan wax tarno wax fara badan waanu qabanay madaxweyne wax fara badan oo naga soo ka gaaray way jiraan waxaan u mahadnaqnaa gudida abaaraha heer qaran abaaruhu ay jirna amberigii booyin sida awgeed dadku resistan u yeesheen inay u adkaystaan oo aan madaxweyne qaylo badan aan lahayn laakiin waxa meesha yaala wax laga argagaxo ayaan ku arag ilaahay baan dadka wax deeqsin kara waayaan dadaalay haddana fari kama qodna faanoole ilaahayna waxaan ka baryaynaa ilaahay roobka noo shubo anuu fikirkan qabana waan idin sheegaya haday baahidu sii baato waxaan doonayaa Soomaaliland oo dhan inuu dhahdo maanta qeedada hal la joojiyo sidaadka lagu shubo waxaan doonayaa qolada qayisha waar iska daaya waar hadeynaan deynin waa bal maalin noogu wada shuba nooc saas oo kala dhaqaalaha inaan ku soo saarno gacmo jirbay wax ku gooyaanayn maanta gunta dhiisha la iskaga dhigo waxa la eegeegin oo la wada qabto hawshaas aynu u baahanay kulligeenba xogtii 10 cisho ka hor taalay maanta way ka duwantay joog marka waxay u baahan tahay in aynu marba xogagaal u noqono xaaladdu halkay marayso isla markaana aynu saamin karro ama hilaadin karro waxa soo socda iyo ku talagalkeeda waxa kale oo kamida ujeedooyinka socdaalka wafdigu ma marnee wixii aanu ururay 10kii cisho qaran ahaan aynu urursanay iyadana in gobol walba la gaarsiiyo madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddi abaareed oo heer qaran guddidii heer qaran ee abaareed waxay sii magacaabay guddi goboleed dabeedna waxaa sii jira guddi degmo waxaasoo dhan wuu isku xidhmaya iyadoo maxaan ku raad mid qura leeyahay codku yahay mid Soomaaliland wax qaybintu iyo baahidu meel lagu wada salaynayo ay tahay mid Soomaaliland ugu dambeyntii waxaa kulankan soo gunaanaday madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo aan dadaalo wada jirkeena midnimadeena ku dadaalo sidaan u wada shaqeyn lahayn sidaan hawlaha meel uga soo warjeesan lahayn sidaan dadkeena ugu gurman lahayn baahiyo ay qabsadeen ee abaar ku habsadeen dhulka gobolada ku habsadeen iyo deegaamada ku habsadeen in waxaanu gacan ka geysan karno kulligeena inuu ka wada geysano soo wada tagno ilaahay nala qabto Ibrahim Faarax Macaan iyo Hoon Cable TV Burco.